የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት በቅንነት በከፍተኛ ትጋት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in ay Itoobiya diyaar u tahay inay sii xoojiso xiriirka saaxiibtinimada wanaagsan ee dalka Mareykanka la leedahay oo heer wanaagsan ay gaarsiiso. Itoobiya waxay ka shaqayn doontaa si amniga iyo nabadgelyada iyo dhinacyada kala duwan ee iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda ee dowladda Mareykanka la leedahay sidii heer wanaagsan u gaarsiin lahayd. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Taye Asqasilaase ayaa qasrigiisa ku qaabilay oo isla markaasina awaamirta iyo waliba jihooyinka shaqo ku wareejiyay safiirka cusub ee dalka Mareykanka loo magacaabay Ambassador Bernard Andolum oo ahaa wasiirkii nabadgelyada ee hore ee dalka. Haddaba waxa halkaasi hadalkii ka soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Ambassador Bernard Andolum ለዚህ ኃላፊነት በመታጨቶ እንኳን ደስ ያለዎት። Ambassador Bernard Andolum waan ugu hambaleynayaa xilka cusub ee lagu wareejiyay. waxaan ku sii wado kale loo baahan yahay inaan ka shaqeyno xiriirka saaxiibtinimada ee dowladda Mareykanka la leeyahay si heer wanaagsan loo sii gaarsiin lahaa loona sii xoojin lahaa. waa inaad ka shaqeysaa xilliyada dambe aad ka shaqeynaysid. waa in dhinaca iskaashiga Mareykanka la leeyahay maadaama uu yahay mid dhinaca ganacsiga iyo waliba dhinaca iskaashiga ganacsiga wax weyn in looga baahnaa in laga shaqeeyo oo yahay saas darteed waxa loo baahan yahay in la sii xoojiyo aad ka shaqeysid arrimaha iskaashiga iyo waliba marka ay xaaladu adkaadaan in sidii loo dabcin lahaa aad ka shaqeysid ayaa loo baahan yahay oo ballanqaadkaagana aad kaga soo baxdid. haddaba waxa shaqadaasi loo baahan yahay inaad kaalintaada ka qaadatid gaar ahaan sumcadda Itoobiya iyo waliba xiidanaha Itoobiya waa inaad ka xajootid oo xiriirkan la leeyahay dowladda Mareykanka waa inay noqoto mid wanaagsan oo heer wanaagsan sidii loo sii gaarsiin lahaana aad ka shaqeysid ayuu ku yiri fariintiisa. dhinaca kale safiirka cusub ee loo dhaariyay in uu ka noqdo safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Itoobiya Ambassador Bernard Andolum ayaa isaguna halkaas hadalkii ka sheegay waxa uu ku sheegay ብሔራዊ ጥቅም በተጠበቀ አኳኋን የሁለትዮሽ እና የጋራ إلا إحترامه أو دنا إثيوبيا لقى شقيو أيان كشقين دونا حل كاني لجوري شيء وحنا كجا دبين دونا سيدي أنسكاش إثيوبيا يوم مريكان كهير ونكسن أنو جانسي لها جانا حدين عن دبلوماسية دا يوسف حقل كان دبلوماسية ديت الدولة مريكان كلنا لها سيدي أن هير ونكسن جانسي لها ياك شقين يا جانا حدين عن جناحسيجا يوليبا جناحسيجا إثيوبيا ما دام بدأ عدها جو بدن دلك إثيوبيا أيود درس دلك أسي مريكان كسيدي جناحسيجا ونكسن لو قد حبوري لها لبض الدل أيان كشقين دونا أرنت أسي واحد نقول دونتا ميدان سوين وشقين دونا جانا حنا دين عد اسمها سمعة دلك إثيوبيا يو شرفته دلك إثيوبيا سي loo dhisi lahaa ayaan kaalin weyn ka qaadan doonaa gaar ahaan wada hadalka iyo waliba isdhexgalka isku soo dhawaanshaha dalalka dibadaha iyo Mareykanka qurba joogta tirada badan ee ku nool ee Itoobiya ka soo jeeda sidii xiriirta wanaagsan oo saaxiibtinimo loola yeelan lahaa oo sumcad wanaagsan oo dalka Itoobiya sidii muuqaal wanaagsan loogu dhisi lahaa arrin weyn ayaan ka qaban doonaa ayuu yiri Ambassador Bernard Andolum. haddaba guud ahaan waxa la sheegay xiriirka saaxiibtinimada Itoobiya iyo Mareykanka ka dhaxeeya inuu soo maray oo soo jirsaday in ka badan 120 sanadood.